Asalaamu calaykum asxaabay waa idin wada salaamo sidaa u dhantihiin marka shalay qaybtii labaad ee cost of livingka oo lasoo ogolaaday marka dad badan oo muxuu ahaaye yiri iimaysan soo dhicin qaybtii hore iima soo dhicin marka qaybtii hore haddaysan kuu soo dhicin waxaa waaye dadkii loo ogolaaday haddii aad qaadanaysay ama laguu soo ogolaaday awal hore aad qaadanaysay 26 ilaa 25 May dadkii loo ogolaaday haddaad ku jirto oo dadka qaadanaya aad ku jirtid qaybtii hore waad heli lahayd oo 326 waad heli lahayd marka haddaadan waqtigaas qaadanin qaybtii labaad see xaq ugu yeelanaysaa marka qaybtii labaad waxaa waaye haddii iyadana dadkii loo ogolaaday ceyroo dhan job seeker allowance job seeker allowance iyo pension creditka ama tax creditka ama aad qaadanaysay tan kale universal creditka aad qaadanaysay intaas mid ka mid a haddaad qaadanayso ama laguu soo ogolaaday 26 Agoosto ilaa 25 Sebtembar bisha 9aad haddii aad qaadanaysay sanadkan qaybtii labaad muxuu ahay xaq ayaad u yeelanaysaa marka aan hal mar kuugu soo celiyo si dhaqsiya waxaa waaye 26 oo Abriil ilaa 25 May haddii laguu soo ogolaaday benefityadaas oo horey loo soo sheegay pension creditka job seeker allowance universal credit tax credit haddaad qaadato lacagtii hore waad heli lahayd tan kalena inta ka dambeysay haddii laguu ogolaado ay ka dambeysay ilaa 26 Agosto 25 Sebtembar haddii laguu soo ogolaaday tan dambe way kuu soo dhacaysaa marka haddaadan fahmin su-aal iigu soo celidheh meesha iigu soo qor waxaa waaye waa in lagu ogolaadaa ceyrarkanitood 25 May wixii ka dambeeyay haddaa dadkii loo ogolaaday aad ahayd tii hore waa kuu soo dhici lahayd tan dambe waxay kuu soo dhacaysaa Agosto dadkii loo ogolaaday haddaa tahay bishii 8aad haddaa ceyrtaas qaadanaysay way kuu soo dhacaysaa automatic ay kuugu soo dhacaysaa marka looma baahna inaad dalbatid marka automatic ay kuugu soo dhacaysaa marka haddii ka dambale aad ahayd Agosto wixii ka dambeeyay haddaa tahay marka inaysan kuu soo dhicin laga yaabo laakiinse waxaad wareysan kartaa job centerka ayaad wareysan kartaa iyo tax creditka intaad telefoon u dirto dee aniga waqtigaasaan ceyrtan qaadanaya iimana soo dhicine maxaa dhacay waad weydiisan kartaa su-aasha ayagaa muxuu ahay aad aga jawaabi karo jawaabaha si dheeraada kaaga jawaabi karo kaa dhaadhicin karo asalaamu calaykum